Frank Abagnale waa nin Maraykan ah oo dhalinyarnimadiisa sameeyay khiyaano badan, asigoo shaqooyin aan wax ka aqoonin sheegtay sida inuu yahay baylod diyaarado badan sidaas ku raacay. Mar kalena wuxuu sheegtay inuu yahay dhakhtar, marna wuxuu sheegtay inuu yahay lawyer. Waxa uu kale oo dhacay lacago fara badan si xirfadeysan u qaatay. Waxaasoo dhan wuxuu sameeyay muddo 5 sano gudaheed, markii da'diisu ay ahayd 16 sano jir ilaa 21 sano oo gaarayay. Markaasoo xaaladihiisa laga war helay in xabsi loo tixaabo. qisadiisa cajiibka lahayd asigoo dhalinyaro ah ugu mermersaday in gacanta lagu dhigo ayaa waxay keentay in qisadiisa filan laga sameeyo. Magaciigu waa Cabbaas Mustaf, halkan waa Roman Media. ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. Fiidiyogan like saar sidii YouTube-ka dad badan u gaarsiiyo. Waad mahadsantihiin. haddaba fanaanka asigoo ka sheekeynaya waxa uu ku tilmaamay asigoo 16 sano jir ah ay waalidkiisa kala tageen. Markaas ay maxkamadda ku tiri mid dooro si aad ula noolaato mid ka mid ah waalidkaaga, laakiin waa uu diiday inuu kala doorto. Waxa uu bilaabay in kaligiisa uu noolaado, asigoo bilaabay inuu raadiyo shaqooyin naftiisa ku kaafinayo. maalmihii ugu horeeyay ayaa waxaan ogaaday haddaan da'deeda weynayo lacagtaan ku shaqeeyo in lii kordhinayo, maadaama aan ka jir weynahay da'deeda. markaan suudka qaato la ii moodo inaan da'deeda ka weynahay. markay lacagta ku yaraato wuxuu bangiga geen jiray check forgery ah oo aan lacag bangiga u oolin oo kaga qaadan jiray. markii booliiska ka war heleen ayuu noqday inuusan bangiga ku noqon karin, taas oo ku qasabtay inuu New York iskaga tago maadaama ay booliiska raadinayeen. maalin asigoo marayo meel hotel ayuu arkay niman baylod ah oo hotel sii galayo. markaas ayaa go'aansaday si aan iskaga dhigi lahay baylod, markaasna adduunkoo dhan si lacag la'aan ayaa ugu safri lahaa. waxa uu wacay shirkad telefoon diyaaradaha lagu oran jiray Pan Am oo xilligaas ahayd shirkadda diyaaradaha America tan ugu weyn. waxa uu sheegay inuu yahay baylod, asigoo u sheegay in uniformkiisa kaga dhumay hotelka, rabana inuu uniform cusub la siiyo. markaas ayay waxay u tilmaameen shirkad uniformada sameyso, sidaasna ayuu ku helay uniform ay xirtaan baylodyada. markaas ayuu bilaabay siduu ku soo heli lahay ID ama kaarar ay baylodyada wataan, asigoo u tagay shirkadda sameysa kaararka mid ka mid ah, asigoo sheegtay in ay soo dirtay oona kaga socdo shirkadda Pan Am. markii uu uniformkii kaarkii shirkadda Pan Am oo helay ayuu wuxuu bilaabay inuu airport-ka aado asigoo raacayo diyaaradaha kale, maadaama uu ka baqayo inuu raaco shirkadda Pan Am oo uniformkeedii kaarkeeda sito, in baylodyada kale ay gartaan in kaar forgery ah uu sito oo sidaas ku kashifaan. taas ayaa waxay keentay inuu raaco diyaaradaha kale, iyadoo shirkadaha diyaaradaha xiriir ka dhaxeeyo in shaqaalahooda isku qaadi karaan lacag la'aan. ninkan ayaa wuxuu fadhiisan jiray kursiga ka dambeeya baylodka, asigoo yidhi in dhowr mar oo ii soo jeediyo inaan wado diyaaradda, anigoo marar badan ka diiday arrintaas maadaama aan ogaayay inaan diyaaradaha sida loo wado aanan wax ka ogeyn. markii aan ka dego diyaaradda waxaan aadi jiray hoteelo si bilaash ah, maadaama hoteelka lacagta laga rabo u dileeci jiray shirkadda oo hoteelada u saxiixi jiray. waxay lacagtaas ka qaadan jireen shirkadda Pan Am. shirkadda diyaaradaha ee Pan Am waxay tiri ninkan marka uu jiro 16 ilaa 18 sano qiyaas ahaan wuxuu duuli jiray 1.6 milyan oo kiiloomitir, asigoo raaci jiray 250 duulimaad oona ku tegi jiray 26 waddan, asigoo sheeganaya in iyaga u shaqeeyo, sidaasna ay diyaaradaha kale xiriir kala leeyihiin Pan Am ku wada jireen. furna ayaa wuxuu kaloo jawaabiyey inuu shaqooyin kala qabto oo isku dayay in kalkaaliye dhakhtar iyo lawyer noqdo. markii uu bilooyin shaqeeyo dareemo in la ogaado ayuu iskaga tegi jiray shaqooyinka. haddaba 1960kii ayaa waxa uu diyaarad u raacay Faransa, markaas oo booliiska qabteen mar ay ogaadeen ninkan in Sweden laga rabo. bangiga Jack Ben ah lacag uga qaatay. waxa uu kala soo dalbaday in ninkan loo soo gacan geliyo 12 dowladood, laakiin Faransa waxay ogaatay in Faransa sidaas oo kale ka sameeyay. markaas ayay maxkamad saartay, waxaana lagu xukumay 1 sano oo xarig ah. kadib ayaa waxaa loo soo dhoofiyey Sweden oo halkaas lagu xiray 6 bilood, waxaana loo soo tarxiilay Maraykan. maxkamad ayaa lagu saaray, waxaana lagu xukumay 12 sano oo xarig ah, laakiin 5 sano wax ka yar asigoo ku jiro ayaa waxaa loo soo bandhigay in la sii daan doono haddii uu u shaqeeyo hay'adda sirdoonka Maraykanka ee FBI-da, si ay ugu faa'iidaystaan xeeladaha uu samayn jiray iyo sida bangiyada u khiyaani jiray.
hay-adda sirdoonka ee Mareykanka ayaa mararka qaar waxay shaqo siiyaan dambiilayaal maskax badan haddii ay u arkaan inuu khibrad fiican leeyahay. ninkan ayaa wuxuu kula sheegay shirkad uu kula taliyo bangiyada uguna baraarujiyo xaaladaha lagu qiyaameeyo asigoo sidaasi lacag ugu qaadan ninkan markuu ka sheekeynaa noloshiisa ayaa wuxuu tilmaamaa in dad badan ay ku sheegeen inuu yahay nin maskax badan, laakiin anigu waxaan isku aaminsanahay in xilligaas aragti gaabnaay. haddii aanan maskax lahaan lahay waayo aragnimo lahaan lahay uma fikiri lahayn inaan dhallinyarnimadeeda kuma qaadan lahayn waqtiyadeeda banki inaan dhaco iyo shaqooyin been abuur ah oo aan sheegto oo xabsi aan ku muteysto. arrintaas ilaa maanta waan ka qoomeemeeyaa ayuu yidhi. barnaamijkeeni haladaas ayuu ku siman yahay. haddii uu fiidiyoon ku qanciyo fadlan like saar. haddii aad ku cusub tahay haweenta Roman Media kuna soo biir oo subscribe taabo u share garee asxaabtaada. waad mahadsantihiin.